جبلان وكهوس بحد حسن وحنا كما قبان كرو حسن جبلان وحي دقنتهي حمدوبي جزيرة الشباب كو هريسين دغ حسن ما غار وحنا كما قبان كرو gacantiisa ka baxda waxa ku soo xigo maamulka koonfur galbeed madaxweyne lafta gareen xasan lafta gareen wax badan oo ka awoodo ma manaanay inkastoo hadda maqlayay waxa taliyaha cusub loo magacaabay odawaay in dhulka la maro baydhabo dhulka laga tago xaggaas tago Etoobiyaanka baydhabo laga saaro oo yani sidaas okay that's fine wadanka da xog ku qabsan karto hal nimo awood leh oo wadankan maamulo Soomaaliya ay isaga qabsi ku jirin fine and good wadankan ka soo daalay ana kula leeyada maartay iyo adkayga hidi iyo looma dhama iyo kalsoonidan ka laabto Soomaaliya ka soo daashay hada samay karto well and good waa wax fiican inaad awood ku muqooni karto wax kasta waxa ka muhiimsan inaad baydhabo xamar isku furto laakiin waxa ku soo socda aniga dareenkayga saadaasheeda iyo sahankayga siyaasadda wax weyn lafta gareen dan oo kale yahay maanta dantaas oo kula jooga ku xoodina ku ag fadhiya waxaad fahmi kartaa bareesharka iyo culayska ka soo socda adisaba ay saarayso lafta gareen adisaba culayska ay saarayso ayaa dareemi kartaa culayska Axmed Madoobe oo saaray uu leeyahay warheede meesha ay ugu cilaynina hadii aan anigu waad ii jeedaa soo dhaqaaqo bahasha qabso culayska ay Puntland saarayso laano hawiyihi markii laga tago labadan maamulo galmudug Hirshabeelle hawiya iyo adigu hawiya markii laga tago lafta gareen baa kugu haray wax maamul kula sheegta dawladuna federaalku shuraaka wax lagu shirkaa waa marka ka soo baxay leeyahay lacag anaga ku hayna waxaad rabtaan ku siinayna war isaga soo tag meesha waxba u xeerinayaan ma aqaan laakiin waxaan isleeyahay waa un dana gaaban fahamkan ka qabo waxa weeyaan madaxweyne lafta gareen in baarlamaanka labada aqal federal level ka inay xamar shir ku qaban doonaan ama ay iyagu shir qaban baydhabo aadi doonaan si maaragtay طبعا waa wax hoos laga wado hoos ka socda inay baydhabo wada aadi doonaan baydhabo markay tagaan wada tashi u fariisan doonaan wada tashigaasna ay ka soo bixi doonto in doorasho la qabto marka waxa wada tashigaas gali doona ee suurtagalnimadeedan ka hadlaya maamul baarlamaanka labada gole ee iska soo jeeda koonfur galbeed iyo baarlamaan hoosaadka koonfur galbeed iyo dhaqankii in shir la galo shirkaas marka ujeedadiisu gogol xaar waxay u tahay waxa ka soo bixi doono in madaxweyne lafta gareen oo doorasho qabto madaxweyne lafta gareen marka asagoon xasan la diririn asagoon xasan waxba maaragtay dadkana ka gelin heshiisyada ay galeen oo in raas wasaare ku xigeen labaad la siiyay iyo in waxyaabo kale lacag la siiyay iyo in waxyaabo badan loo xeeriyay asagoo aan dadkanadaas gelin inay baarlamaanku ku qasbaan oo yiraahdo war waxa ay qasba madaxweyne baarlamaankayga baa qasbaan oo kaligeeda wadanka ma maamuli karo madaxweyne kaligay ma ihi marka baarlamaanku waxay ugu dhaheen waa inaad doorasho qabsato marka sidaas darteed madaxweyne waa laga maarmaan doorasho qabana maxaa qaban kartaa xasan sheekh markaas maxaa dhehe haka yeeli warka ustaado haka yeeli waxaan naga waxayn ma jirto madaxweyne waa dhacaysa doorashadii way dhacday waan qaabka lagu soo gali doono waan qaabka u dhici doonto sidaan aaminsanahay lafta gareen baydhabo la isugu tago la yiraahdo adduunka sababtii keena anuu ninkan heshiis baan la gardada xeel u haya ma rabo inaan xasan hal mar igu fakado aan ninkan culays badan baa saaran culaysidaasna ma hayn karo adigana waad si daciifaysa waa lagu jeedaa taas waa mid lafta gareen galmudug iyo hirshabeelle aan ku soo hormarinayaa xasanow hirshabeelle waxaad kala haysaa xawaallo iyo abgaal xawaallo waxaad leedahay xilka adinkan inay dhiibaya طبعا وسيرك هذا شدالك تليانا بتسجد dad badan sugaya oo aaminsan in madaxweynaha Hirshabeelle noqonayaan heshiis kula gashay laga yaabo abgaalna waxay ku leeyihiin harta abgaal waxay ku leeyihiin kuma dhacdid madaxweyne kuma dhacdid inaad xilka madaxweynaha Hirshabeelle abgaal xawaalo siiso ama aad xawaalo kula saaxiibto abtiyaasha halkaas ay taagan yihiin ayagoo fahamsan maanta diyaar garow baan oo xoogana ka jira wadagta Hirshabeelle waxay doonayaan in aadan xilka aadan ku wareejin xawaalana waxay doonayaan xilka abgaal siiyeen Soomaa waxa meeshaas imaanaysa marka in waqtiga saxda ahaad aan lagu la sugun ee siyaasiyiin harta abgaala
iyo siyaasiyiin kale isku soo baxaan la yiraahdo xasan doorashada waa qabsanaynaa laana meesha u waday ogyihiin haddaadan taasoo dhicin inaad kelimad ka dhihi karno sidaa ku aamusnaato ayay imaanaysaa waxa kale suurtagalnimadeedu sarreysa inay Hirshabelle gacantaada ka baxdo meesha la galmudug siyaasiyiin badan oo xoog badan oo galmudug xilka doonaya jiraan hadda waa dhabacan yihiin oo isleey xaaladooda laakiin maalintii doorashada Jubbaland dhacdo wax badan baa isbedeli doona heerkulku aad buu u sareyn doona maalintii koonfur galbeed ayadana waxeeda ku dhaqaaqdane maalintaas galmudug ayadana waa dhaqaaqaysa lama celin karo tabartaaduna intii maanta tahay hoos bay uga sii dhici doontaa waxaasaa kuu soo socda qiyaastayda iyo fahamkayga qiimaynteeda siyaasadda iyo sahanka hadda ayaad fursad haysataa wadada saxda mar waxa saxan sameey qaladaadka sax ummadda Soomaaliyeed taariikh u sameey meel ummadda Soomaaliyeed loogu soo hagaagan u sameey Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ambaliyo madaxweynaha dhawaan la doortay Somaliland waxaan dhageystay khudbadiisii koobaad oo dhowr daqiiqo ahayd waxay ahayd khudbad qiimo leh sharaf leh odatinimo mas'uul waayo aragnimo bisayl ku jiro aad u qiimo badan ahayd oonan arag mas'uul Soomaaliyeed oo sidaas u hadlay fursado badan oo Xasan Sheekh oo heli karay oo maanta Somaliland oo kula macaamili karay waa u dhumay sababtoo ma uusan jeedin mana arkaba maxaa ay ku dambeynaysaa Somaliland iyo Soomaaliya wada hadalladii u dhaxay Muqdisho iyo Hargeysa waxaan is leeyahay meeshii laga raba ma taagna hanaankii laga rabana yani ma muuqdo laakiin way siin socod doona xasan laakiin fursad weyn oo dayac Cabdiraxmaan Ciro aad uga bedelan yahay Muuse Biixi aad uga bedelan yahay waxaan aaminsanahay Xasan Sheekhow iyo madaxweyne kastoo Soomaaliya yimaada inay fahmaan dulucda iyo qaladaadka jira lana saxo sida Soomaaliya ay uga bixi lahayd mushkiladan iyo qaybsanaanta anigu unionistaan ahay mana qarinayo midnimo Soomaaliyeedan anigu u ololeeyaa Soomaaliya midahan rabaa tuulo iguma filla anu reer galmudug aan ahay marka galmudug uma filla koonfurta uguma filla hawiye uguma filla daarood uguma filla isaaq uguma filla Soomaaliya isirka Soomaaliga ah baa igu filan anigu Soomaali baan ahay intaasana xuduudda halkaasay taala haddii la wada noolaan waayeen si nabada in lagu kala baxo ayaan aad u doorbidaya meeshii la isjijiidi lahaa madaxweyne Ciro waxaan is leeyahay khibraduna uma dhimana odatinimana uma dhimana waxaan rabaa dabcan Ethiopia aad ayay kugu soo gurma doontaa waxaan u maleynayaa meesha ugu horeyso dabcan safar ku aadan Ethiopia noqoto sidii dhici jirtay madaxda Somaliland waxaan rabaa oo aaminsanahay inaan fikirkayga anigu dhiibto oo ah Somaliland Hargeysa iyo Kismaayo Addis Ababa kalama jecla Garowe iyo Baydhabo kalama jecla Xamar iyo Burcana kalama jecla waa isku mid Addis Ababa magaalooyinkaas ayay ka mid tahay Hargeysa Soomaaliga u tahay Soomaalina kama jecla koonfurna kama jecla waqooyina kama jecla Ethiopia hal qorshay Soomaaliya kala leedahay Soomaaliya week ah Soomaaliya tacbaana Soomaaliya la maamulo Soomaaliya ayada gacanta ugu jirta beerihii sirdoonka iyo beerihii siyaasiyiinta ay tabacdo 30 sanana inay ka hana qaadaan dabcan buska laga jafayo hadda wax badan waa shaqeeyeen qolo badan waa soo aanbaxday qolo badan suuqa waa la keenay marihii Ethiopia u dhashay 30 sano qayb badan oo kamid ah suuqyada waa ku aragnaa hadda suuqyada taagan yihiin qayb badan waa qarsoon yihiin dabcan markastoo xaaladdu kululaatane dalag cusub oo beerihii Ethiopia ka soo go'ay siyaasiyiinta sirdoonka Soomaaliya ku talaali 30 sano ayaan ku arki doonaa suuqyada laakiin yaa lagu kadsooman Addis Ababa Xamar iyo Hargeysa kalama jecla Kismaayo Garowe kalama jecla yaa lagu kadsooman waxaan la hadlayaa ma aha siyaasi dan leh
dantiisa iyo maartay geed qabsigiisa ka arkay hadda sabab ku tiirsanaashadeeda laakiin waxaan hadlayaa muwaadinka Soomaaliga ee miyir kale ee Ilaahay fahamka siiyay aqoonta leh ayaan la hadlayaa hadalkii hore waxa ku jirta hadda ka hor oo la yiraahdo Soomaaliya maqal barnaamijyadii kooda aan bilaabay channelkan siyaasi Soomaaliya xiriir la leh Itoobiya oo guul siyaasadeed gaar weligeed lama arag laakiin waa la arkay siyaasi Soomaaliyeed oo Soomaali dhexdeeda ku ceeboobay Soomaali dhexdeeda ku dulaysan ummadda Soomaaliyeed duleeyay Soomaaliya gacmo qabtay Soomaaliya bahdilay laakiin asaguna bahdilay